we got to make sure we're very clear here. That there's no misinformation. So that would be pedophile. Yeah. So Muhammad, the greatest man ever to live, the greatest example, was a warlord who married a 6-year-old, raped her when she was 9, and then kept multiple wives. Yeah. Think like Jeffrey Epstein with a standing army. That's basically Muhammad, right? runtii ma doonayn inay dhagayno maqlaan kelmadahaas lagu aflagaadaynayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam. ninkaas waa Charlie Kirk, waa ninkii xalay lagu toogtay dalka Mareykanka xilli goob fagaara ah oo khudbad ka jeedinayay oo toogasho ilaa ay xilligan aan la garanayn cidda toogatay lagu dilay. ninka noocaas ah ee rasuulka iyo xaasaskiisii aflagaadaynaya oo kiiska uu ka hadlayo waa guurkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo Caaisha ummul mu'miniin dhexmaray isaga oo markaasi de kelmadahaas ma oran karo gafka ay u galaya mataqaanayay rasuulka u cilay caruurtu kufsaday buu ku eedeynayaa. ninka noocaasa ka waran hadii qof walaal Afrikaan ah oo Soomaali ah oo haddana masuul sheeganaya uu tacsi u diro haddana iska daaya xisbiga guud ee wadani ee maamulka Soomaaliland xilligan talada hayay uu qofkaasi gudoomiye u yahay waa Xirsi Cali Xaaji Xasan. arrintaas oo xilligan baraha bulshada qabsatay foolxumo iyo murugana ku noqotay ummadii Soomaaliyeed iyo ummadii Islaamka ahaydba iyadoo markaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan fariimahan jawaad ah ay ummadda Islaamka ahi u dirayaan. maxaa dhacay? ninkan muxuu ahaa? muxuu caan ku ahaa? diinta Islaamku maxay ka qabtaa? haddii qof gaal ah oo dhintay waliba gaal iskuma jire ninkan diinta uu nibca Islaamka anti islaamisti buu ahaa. wuxuu ka soo horjeeday qadiyada Gaza iyo Falastiin isagoo ku digan jiray caruurta qasay ee la laayo. dadka madowga ahna wuu nibcay anagu aynu ka midnahay hadaynu nahay Afrikaan iyo Soomaaliba. midigta fog ayuuna ahaa. ninka Xirsi ah marka intaas wuxuu u marayaa Donald Trump ha idan aqoonsado maadaama ninkan xisbigi Trump waliba kuwa midigta fog uu ka tirsan. diintu maxay ka qabtaa waxaas oo dhan barnaamijkan idin kula wadaagi doonaa soo dhawaada iyo ceebta dhacday. Xirsi Cali Xaaji Xasan waa 100 sano guuradii ka soo wareegtay markii nin la oran jiray Xirsi Kooshe oo ay isaga isku reer yihiin uu sayidku ka soo mooroduugay geel loo yaqaanay daboolale. qolada sayidku wuxuu aanay inay gaala raac yihiin. ninkaas oo ay isku reer yihiin ninkan Xirsi magaciisana Xirsi Kooshe la dhaho isagana Xirsi Cali Xasan la dhaho ayay isoo xasuusisay doodiisu caaway. oo maxaa loo leeyahay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan 1921 buu dhintay. soo isaga hadda maanta Xirsi Cali Xaaji Xasan gabaygan u tirinaya oo ka hadlaya ficilada uu sameeynayo ee qarciska xornimada ah ee khatarta ah. muxuu ka yiri sayidku ninkaas Xirsi Kooshe ee waliba ninkan ay isku magac yihiin xilligaas markuu yiri inta iyagoo ergawata u imaadeen oo xurmii daraawiisha tageen ay dhaheen sayidow geeli soo celi oo sayidkuna markaas karbaash u qoray oo yiri gaala raac baa tihiin mara hore badanna waa ay qiyaanteen geelana uu diiday oo markaas ergadoodii uu gabaygan u mariyay. sayidku nimankan waxa soo diray gumaystii Ingiriiska xukumayay markaas deegaanadaas waraaqi isagu u qoray mataqaana magacyadooda ku qoran yihiin bayna sayidka u geeyeen. gabaygan ayuuna ku karbaashay sayidku waana mid loo isticmaali karo loona adeegsan karo xaaladda xilligan oo ninkan Xirsi ah oo ninkaas awowgiisa isku magac ahaayeen mataqaanayay uu sayidku u isticmaalay kelmadaha nuclear-ka ah. wuxuu yiri Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Xirsiyow naaqusnimo waa waxaad niiq la leedahay naxar lagu shid waa jaahil iyo nararacdiisii naybaatihiin aan qalbiga nuurka loo gelin. naasila xun baa lagu yiqiin nimanka ii doore wax ka niiqsan 10 jeer kuwii naaqurka lahaa. naaqurka waxa isir waa buuryada. nasab hadaad tihiin gaaladaad nici lahaydeen naxli baad ka dhigateen halka nariga lahaayaaye nasteexadu waxay idinla tahay naafacan jirine ka nacawdu shaydaamadaad nacam tiraahdeen. naar quutayaal iyo kufraad nabiya moodeen naarta waxa idinku guri waa nibiriyaashaase nasaarada waxa u taabacdeen waa najuusnimo.
naagaw tihiin faranjigii noloshka dheeraa nacaluhu kuwuu fuulay baa daba nashlaysaane naamuskiin wuxuu jabay markaad nacab ka raacdeen gabaygaasoo sayidku horta ku karbaashay ninkii xirsi ah isla xirsi baan hadday karbaashkaas u guraynaa diinta islaamka maxay ka qabtaa in gaal weliba gaal xag jir ah oo diinta nabcaa loo tacsiyadayo aayadaha ku soo degay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihiin waxay aayadaasi leedahay markay ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وآيات بقول تغني صدحات سورة توبة ترجمات دون وحاوي النبي يكون رمويتونا وما بنانا إني أبريان ذنب داف مشركين حتى هديهين قرابة ضوضا kadib markii la ogaaday inay yihiin dadka ama asxaabta naarta haddaba aayadahaasna waa uu ka hor imaaday xirsi sayidkiina xirsi kooshin awowgiisuu fariintaas u diray maxay markay arrintaasi ay u samaynayaan nimankan horta ma ahan markii ugu horreysay oo shakhsiyaad diinteenna anti ku ah hambalyo loo diro xukumadii kala duwanaa ee maamulkan soo maray oo dhan way hambalyeynayeen way dirayeen laakiinse xilligan cabdiraxmaan ciro wuxuu qaaday waddo qaldan iyo meel aan ictiraaf laga raadin ayuu qaaday markii uu dhintay boobkii baadarigii weynaa ee Rome Vatican waa uu tacsiib u diray waxaana la isticmaalay yarkii samaroon ee wasaaradda arrimaha dibadda joogay baa u tacsiideeyay iyadoo wadamada islaamku aysan wax tacsi ah dirin maantayna ninkan oo midigta fog ah ayay tacsi u direen oo fariimahan ayay u dirayaan maxay tahay ujeedada xilligan ay ugu dirayaan maxaysan ninkan ugu tacsiideynayaan horta aan idin la wadaago walaalayaal horta ninkan waxa la yiraahdaa Charlie Cake ninkan waa midigta fog ninkan wuxuu ku caan baxay islaam nacaybka wuxuu ku caan baxay cunsuriyad dadka madow in la naco in la ceebeeyo qaxootiga in loo diido in dadka muslimiinta ah Mareykanka laga saaro in Gaza iyo Palestine aysan xor noqon wuxuu ku digan jiray bambaanooyinkii lagu qarxinaya caruurta isagoo u arkayay cibaado ay gulanayaan canshuurta Mareykanka ee lagu dhibaateynayo shacabkaas fagaarayaasha ayuu ku qaban jiray mataqaanaa doodo ninkan horta ninkan noocaas ah dilkiisu wuxuu ka dhacay jaamacad ku taala dalka Mareykanka isagoo halkaas khudbad ka jeedinayay ayaa laga soo toogtay meel la sheegay inay tahay 200 mitir dabaqyadii hareeraha ku dhawaa bartaas surkaabay xabadu uga dhacday halkaas ayuuna ku nafbaxay ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay waxaa jira nin askari ah oo askarta hore ciidanka Mareykanka oo la qabtay oo la sii daayay dad badan ayaa ka hadlay dilkiisa iyo cidda ka dambeysay dadka qayb waxay leeyihiin nimankan yahuud waa niman dhagar badan si ay taageero u sii helaan ayayba u dilayaan baa buligu iyagaa ka dambeeyay leeyahay dadka qaybta si xisbiyada midigta fog ay cabsi u dareemaan oo ay ogaadaan in la ugaarsanayo ayay u dilayaan sidaas oo kale ma ahan markii ugu horeysay ee lagu eedeeyo inay dambiye ka geystaan Mareykanka dabaqyadii ka dhacay daandhaha qarxyadii ka dhacay mataanaha 2001 September 11 waxaa la sheegaa in la arkay niman yahuud ah oo shacbinaya oo farxsan oo mataqaanaa waana caan sheekadooda eriyadii maalmo kadib sirdoonka FBI-da gacanta ku dhigay waa la sii daayay ujeedada ay kala hayeen waxa la sheegaa inay iyagu ka dambeeyaan baa la sheegaa mataqaanaa daarihii la weeraray mataqaanaa taawriska oo
2001 si toddoba wadan oo ma taqaanay qatar u arkayeen loo weeraro wayna dhacday waa la burburiyay bugaag badan ay si ayadu qoreen xataa ku jirta qaliyahan intelligence-ga Amerikaanka bugaag ay qoreen waxa jirta inta toddoba wadan la burburinayo islaam ah ka hor weerarkii 11 September 2001 wayna dhacday hadda waxa la leeyahay ninka kiiska ninkan la dilay oo iyaga taageersanaa oo waxa ku faraxsanaa si markaasi loo muujiyo ama xisbiyadii taageeri jiray ay ugu shubaan dhiig cusub maadaama hadda reer galbeedka ay naceen ma taqaanaa ii sheeg kan jabeen dambiyada ay geysanaysa Gaza laga geysanaya qaso Israa'iil geysanaysa wadamadii badnaa oo reer galbeedku ay xataa taageerayaan Israa'iil Sweden oo kale iyo Faransiisku waxay leeyihiin waa aqoonsanaynaa ma taqaanaa ii sheeg waxaan aqoonsanaynaa bileen Palestine baan aqoonsanaynaa bileen Mareykanka dhexdiisa hadda meel dhexdaas waxa ka dhacday in saraakiishii hore iyo dadkii ciidamada Mareykanka ahaa iyo xildhibaano ay diideen oo ay ka hor imaadeen oo ay ku tilmaameen in ma taqaanay xasuuq genocide halkaas uu ka socdo iyagoo shacabka Mareykanka ugu baaqay inay ogaadaan in canshuurtoodii caruur lagu gaajaysiinayo laguna waxa xilligan kacsan shucuubta reer galbeedka oo dhan oo taageersanaa Israa'iil baa u fijir waa la nacay waxay leeyihiin dadka arrimahan falanqeeya ama ku takhasusay kalsoonidaas luntay ay rabaan inay soo celiyaan oo ay dhahaan islaamkii baa na ugaarsanayo dadka yuhuudda nacbaaba waxay tooganayaan Charlie Kirk oo yuhuudda u doodi jiray hal la ogaado kalsooni bay rabaan inay helaan si markaas ay muddo dheer u sii jiraan laakiin Allah subhanahu wa ta'ala wax walba isaga waxaan halkan idinkaga caddeynaa inay kullu qalbi doonto dhagartoodu ilaahayna waa sheegay xilligii ahaataba haddaba maxay tahay markii ujeedada ninkan iyo qoliyahan ay ninkan u taageerayaan way iska cadahay ninkan maalmahan waxa jiray lobby la kireeyay shirkada waxa jira loobiyada ma taqaanaa gaarsiya dawladda Mareykanka gaar ahaan xafiiska madaxweynaha Donald Trump shirkadahaas lacag fara badan lagu bixiyay shakhsiyaad Mareykanka jooga ku bixiyay lacagtaas lacag Mareykanka laga dhacay bay ahayd qaybtood oo caruurtii xilliga coronavirus caruurtii ma taqaanaa feeding our future programkii lacagiisii bay ahayd lacag kale dadka shacabka masaakiinta canshuurtoodii la geeyay bay ahayd $1 milyan oo dollar abaf ka badan lagu bixinay waxa la rabaa markay maadaama doodan recognition-ka i'tiraaf raadinta iyo aqoonsiga uu karkarinayay ninka la yiraahdo Ted Cruz in uu dhaho waa senator Texas laga soo doortay inuu Donald Trump ku dhaho soo jeedaan Somaliland waxay ka xun tahay dilkii loo geysay ninkan waa dad ma taqaanaa in la hayba inaga yuhuudda ma taqaanaa ay kana soo jeedo muslimiinta iyo qadiyada Falastiin waa inaan la taageero i'tiraaf la si intaas la orday inaa la ilaahay waa inaa marka ma diintaadii waxaad ku bedelanaysaa aqoonsi markay ma nacaybka gazabaad waxaad ku helaysaa inaad ka gadid Mareykanka inaad nacab tahay arintaas oo arin aan u cuntamin ummadda dadka ugu badan ee ka falcelinaya ee xirsi ku arintaasi ku diiday oo ugu hor yimidna waxa weeye waa dadkii deegaanka waa reer Hargeysa reer Burci waan bogaadinaya talaabadaas aad qaadeen diintiina ha iibsanina xirsi saacadana dildo macatab qaado ama cirro macatab qaado wallahi i'tiraaf lagu siinay yeelaa macquul wacda aakhir zaman baa lagu jira aakhir zaman in kasto ay tahay oo xilligii nabiga la soo saaray calaamadii aakhir zamanka ay bilowdeen haddana dhamaadkii adduunyada baa mooda in lagu siisiqay waa xilligii rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu ka sidigay waxuntii waa ayaan darbo ilaahay ma taqaanay tawfiiqda ha ina waafajiyo ilaahayna ha ina hanuuniyo khaatumada in ilaahay khayr ha inooga dhigo iyagana ilaahay ha hanuuniyo war meelaad wax ka raadinaysaan waxba idin kama jiraan ummadda islaamka ku kala dhimanaysaan dadka shacabka ay idinku hoos nool ee waxan qatarta ah ee khatalista ah aad ku ababinaysaan baad ku kala dhimanaysaan ka jooga war ka jooga aad baan idin salaamaya